walaasheena Soomaaliyeed ninka Suudaaneeska Sacuudiga aroosay muxuu ku sameeyay muu dilay muu qashtay ninka guursaday oo diyadeeda u hormariyay laano ninkii oo meherkaaga intaas ku siiyay oo noloshaada maalinta ugu dambeeyay maalinta farxadaada maalinta ugu dambeysay noloshaada hadii laga dhigo qaybta dambe la soo insha Allah qayb labaad idinka soo dhigaa fiidiyoga ugu batay insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadaan ugu cusub tahay soo dhawow hadda hore noola joogtane waa ku jecelahay joog wiligaaga fiidiyogana dhameyso bilaaw ilaa dhamaad raa'igaaga ka bixi una soo duceey insha Allah waalidkaas iyo gabadhaas inta kulay wayba geeriyootay sababtay u geeriyootane barna waa idinka sheegay barka iyo dhameystirkiisa insha Allah fiidiyoga dambe adoo nabad qabo iyo anoo nabad qabo insha Allah ilaahay niskeena keeno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاشين جوارة أفشال هذا نقول عصب تاي سودو وقلبك وجعليني سافية هذا هو رنو لجوكت لك تيشيرت وحقاقة إن شاء الله كجوك عمري عافمات أو بناكسن أو بركيسن إلى إن هيدين حفظه إلى إن هيدين حفظ مال باجوكتانه وحيدين ليه وحيدين جعله وحيدين جعله إلى الدرتيسة ولا لها أو مر والبو إلي رجليه قرب كي تاجن waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin mar walbo waa idin mahad celinaya waxaad tihiin dad mar walbo garabkayga taagan inaa u mahad celiyin waa istaahishaan maanta waxaa idin wadaa qiso oo cajiib ah qisadaas inaan soo sheegay mar waraagsan maray afkayga soo xadaa leedahay dad badan ay soo weydiiyeen igu dhaheen Jawaahire qiso oo gabadhii oo Sacuudiga waa ka sheekayna dhees noogu sheekay qaarna caadi ii weydiiyeen qisada rumiha rum waaye ilaah wuxuu ila ogyahay waaye wax oo maskaxda soo abaabulo jawaartan loo sheegaba kala soo tagoya ko abaabulo nashmee ka gaara muslimiino marka walaalahayga iyo qisada insha Allah idin sheega dad badan waxay ugu dhaheen Jawaahire sawirka soo saarisid maxaa la leef ma soo gashid leef mar walba waa jeclaa inaan soo galo oo fiidiyoga caadi inaan soo duubo oo aan wajigayga hadlaayo marka axyaanan daruufa ay diidays waayo waxay idin diidaa buuq amba waxay idin diidaa maxaa la dhahaa dajo badan saas ay u kalifeyso sawirkayga dad ay soo weydiin waxaa u saartaa sawirkayga waxaa la dharaa lahayn dhaxan makaa celiyaan sawiraanta islaamid badan inaan isticmaalo oo waxa oo kasoo dejiyo Google iyo ma jecli waa YouTube kaaneti soo joogo ku qabsana hadda laba fiideo oo sawiraan oo iyaga la free oo ahaa lacag ma ahayn free oo ahaa labada fiideo hadda ma ii saarno anay xayeysinta ama dacaayad saa u taqaanin iyo masaan labadaas fiideo laana ma ba aqaana yellow way tahay jaallo way ma aqaani marka sida markaas go'aanaba gaaraba inaan sawir amba waxa aan soo saarin oo sawirkayga aan saarto sawirkayga ma ugu qabsan karaa markaas oo iga gardaraya mahano sawiraanteedana saasa u saartaa walaalo badan oo mar walba i weydiiyeen oo nacam waxay igu dhaheen hadaba sawirka soo saaris ma caadi soo gasho waa soo gala waa runtiina marka waxay igu noqonay inaa oo amba subax oo aroor hore inaa duubo amba kale waxay igu noqonay habeenkii xili dambe inaa duubo marka ma awoodi karin nacam xili hore subax hore daa duubo waayo mar hurdaa ku qabaneys binaadana ta salaad subax marka dukatid waxaa rabtaa inaa nafti oo seexatid oo hurdada ku noqsatid habeenkina nacam xili dambe amba jiiraana jifina codkaaga oo la maqlo kaleento ilan qolalku isku dhageeyeen Soomaa marka anna ma jeceliba habeen saq dhaxina wax oo daruuri amba waxa ka seexaba inaa ka soo hadla moog maahne wallahi ma jecelina wax aad duubo marka axyaantaas ay u kalifto walaalihayga maana inaan soo hor fadhiisto ni sheekay waan iska jeclaa naftige marka qisadeena maanta qisadeena iga sheekayna haduu Ilaahay marasa qisada way dheer tahay shaygiina soo qaata raasamaydin dhameena hal mar ma wala dhamey karo taas hal mar ma dhamey karo waayo waa qiso oo sida wallahi musalsal amal u socdo qisadaasiti oo wax muddo waxa laga joogaa hadda kulay intii marka Sacuudi ku nool oo qaarkood wata qisada way ogyihiin hadda YouTuber hata way ogyihiin qisadaas qaarna maba oga oo waayo markaas xiligaas inay ku ceesheen Sacuudiga joogina laga yaabaa taas wixii markaas joogeen dabcan joornaalada lagu soo qoray reerahaas wixii xaafad amba dad diris la ah karwaalis maqla wixii dhaco ilaa hadana qof Soomaali ka dhex dhaco waxay qisadan aheeday gabar Soomaaliyeed waxa soo doon Sacuudiga waxa laga yaqaanaa guur oo la dhahayo aroos bambeene aroos rumee marka aroos bambeene idin kala bixina marka qisadan waxay ku fiicanta leef inaan igu sheekay wallahi taas wajigay leef idin soo galay insha Allah qeybaha ka dambe oo soo baday qeybo kala ka dhigaya
qeybaha dambe wejigeedii soo gelinaya horta waxa lagu qoslimaa walaada qisaasna soo xasuusta ma jeclo waayo murugo badan aan naftiga igu reebatay waxay tahay hooyo hal gabar ifka ka qabto marka waxaa jira naago oo keenaan arooskaas oo rurme iyo beene arooska marka waxaa naagta oo nimanka keenta waxaa la qataabad waxaa la ahaa nimana dhahayaan naagteeda umul waan banaagteeda way dhashay aan naagteeda iga dhimatay ilmaheyga maraba inaan naag kala dhexgeeyo marka xaaraana maraba waxaa rabaa qof xalaal ah oo la sheegin nima hataa qaar waxaa jiraan ras guurkaasaytana xaraam waaye xalaalba ma ahan oo ku dhahayaan intaas kuna dhiibaa naagtan 5 cab 6 cabaaqaba guur itifaaq ah jiro oo gabdhaha qaarkooda ku galaan qaarna kuma galaan oo waxay dhahan xaraam guur itifaaq xaraam waa 5 habeen kadib waa ku furaan maxay ka dhigantaa intaas lacag $1,000 ku siina ninka cudur moo qaba ma jireen nin oo $1,000 $2,000 lagu siina guurkaas itifaaq waa 5 habeen kadib wuu ku furaa ninka wuxuu ku leeyahay xaaskeyga uma leh amba ninkan single wuxuu ku leeyahay sinna maraba wax marbi 5 habeen oo qaba 6 habeen oo qaba gabdho ku galaan way jiraan oo badan ilaahay soo hadeeyaa leenahay tan labaad hooyadan waxay ahayd qataabada naagtaas guurka u keentay ninka wuxuu ahaa Suudaanees oo ahaa dhaagsan oo wato jinsiyada oo Sacuudiga watay raasan Suudaan oo ahaa markaas ninka meel fiican oo ka shaqeynayay kolay ninka usiga wuxuu ahaa dadka qaltaan oo qashtaan oo ahaa yaraagsan markaas shirkad la yaqaan boo sheegto oo ka shaqeynay lacag badan marka meherkiya waxa gabadhii naftiga horta in la fikiraa fiican marmarka qaarkiis ninkan haduu ajaanib yahay inay runka taa laga yaabaa wixii guurka muqtaarasan lacag badan day imaato oo ninkan kuuga af ah inaa ka fogaatida fiican damac katiir biyamuud fi dariiqay dhahan carab gabadhaneeti waxa meherkeed waxay dalbadeen ninka maadaama shirkadaasi oo shirkad oo la yaqaan oo caan oo dadka ka shaqeeyaan lacag badan ay qaataan oo ninkan ajaanib yahay Soomaalida badan Sacuudiga ku nool waxay ku galaan nimanka ajaanibta fursad oo ah inay nimankaas horumar ay ka gaaraan ay ka lacageystaan umbe u guursadaan iyo qaar isjeclaadana waa laga yaabaa raasman badanaaba 90% waxa dhigi karaan wax u guursadaan hungurigaas oo loo raacaa nimankaas ajaanibka halka mar hadhow ha ku bahdila disro raas fursada koowaad waxa loo guursadaa nacmina lacag laga fujiyo marka qofkii ciidan ma isku fikirin hooyadan gabadha halka gabadha ifka qabtaa ma isku fikirin inay bari dhibaato ugu imaan doonto ina gabadheeda ma ku fikirin waxay sheegtay meherkooda waxay dhaheen 50,000 oo riyaal Sacuudi 50,000 riyaal Sacuudi waxay u dhigantaa lacag laana 10,000 3,000 5 meel oo $3,000 idinka isku dhuftaa lacag total 20 iyo dhowrkan buwaaba $30,000 sax may 3 meel 9,000 ku dar 6,000 waxay noqonaysaa 10 iyo dhowr oo dollar ay noqonaysaa gabadhi gabar yar oo qurux badan oo hadda soo bixisay ahayd markaas oo 20 iyo xoogaa hay jirtay gabadhi hooyadan halka gabar ifka qabtaa wiil kale ma qabto gabar kale ma qabto waa lagu daray ninkii waa lagu daray Suudaaneeska waxaa loo dhigay gabadhi aroos oo wiligiis la maqlin oo la arkina loo dhigay subxaanallah wixii qoranna oo xaq alla ka qoranna waaba qoran yihiin Soomaha gabadhii ninkii waa loo guuriyay waa lagu daray aroos fiican loo dhigay hooyadii ha noqoto abti haday noqoto adeer haday noqoto diris haday noqoto 50,000 meherka kuma jiro dahabkii arooskii qaacadii laga tumaayay qaacan waxa la hotelka kuma jiro inaad diil u siino marka moog ma qabtaa 50,000 leeyata 50 qaadato sax arooskii qaacadii kuma jiro ninku wuxuu dhahay wax walba calaamad mas'uuliyadda hadana haduu qof wadanka u dhashto doo ahaa lahaa taa waxa leeyahay lacagtan badan ninkan wadanka joogo maxaa la sheeg wuu heli karaa lacag hata ka soo qabo inkastoo ta qof oo ninka wadanka u dhashta taa gabdhaha ajaanibka ma aroosa in adeertiiso ku aroosado halaas lacag haysta hata maxaa la sheeg ninkanit ajaanib soo shirkado markaas ka shaqeynaya raasan jinsi Sacuudi haysta oo ninka wadanka wax oo ma dhaamo waa Sacuudi qofka doo jinsi haysto kaana Sacuudi qofka Sacuudiyaanka wuxuu qaadanaa isku xaquuq waaye hadii iqaamo leedahay hadii iqaamo lahayn waxa ka mid tahay shacabka kala ka mid tahay laasamaha makan qofka Yemen oo kala had ajaanibka Soomaaliyeed oo jinsi Sacuudi haystaan way jiraan laas wadankooda maal gashtaan haday wax aroosaan wadankooda naaka doontaan ma aroosaan naagahan iyo wax qaali ma doontaan banaankooda aadan wax oo 2,000 iyo wax iska raasana alcumuum markii idinka badinin walaalahayga dhuuntan xanuuno saani codkayga xabeeb daaw aragtiin
markii waxaa dhacday wiilkii gabadhii wuu aroosay aroos wuxuu dhigay kaale iska arag macjug ah oo adduunyo oo dhan laga wada farxiyay gabadhii loo wada duceeyay raasan shuruudiis wuxuu dhahay aniga habeenka leelata daquule waxaa la habeenka guuriska cid iraaci karto ma jirto ciddii waxaa lis dhahay maxaa la dhahay sheeka ninka caadina waa meeshaas ceebka ma ahan leelata daquule gabadha nacam ina asxaabteeda iyo ehelkeeda walaalaheeda inay raacaan guriga soo arkaan caadi waay gabadhan shuko ciddan wuxuu soo tusay gabadha markii oo soo adeegan la dhahay adeega doona la dhahay nacam gabadha waa inay iida taarata mogtahay telefoonka ninkan koob meherka la hormariyaa meherka ka bacdi arooska 2 bilood 3 bilood kadib aa guursanaa wuxuu dhahaa gabadhaneed waa la meheriyey muddo 6 bilood camal miyaa maqaanay ku mehersan muddo ku mehersaneed xoogaa bilooyin raasasana ma gaarin halahaasiti waa guriga la sharaxay waa nin oo dhaka kale u degan ma guriyo raba meeqa guriyo iskala jaari karaa gurigiiba oo gabadhaneed loo sharaxaba ninkaneed naagtaanba looma soo wado meesha maxaa dhacday gabadhii gurigii hooyadeed waracan inkastoo anaga Soomaali aan nahay oo ninkan oo Suudaan oo yaa dhaqankiisa Suudaan oo wato wuxuu sameeyay dhaqankooda dhaqanka Suudaanta kastoo way is shabahaan gabadha guriga iida aado oo soo aragtay gabdhaha carabta guriga ma soo arkaan markii la ismeheriya taa oo alaabta ninka telefoonka kaamirada loo ka tusana waxay rabtay iyo dooqeeda ka sheegay kaamirada ka tusaraas gabadha iida baraacda iyo hooyadeeda iyo walaaleed gurigan kale oo loo kireenooyo oo alaabta la dhigooyo ayada baraacdo lugeeda ku raacda alaabta iida soo ikhtaarata wax walba iida soo gadata guriga seema hooy soo sharaxdeen wuxuu dhahay leelada daquule marka gabdhaha waxaa dhacday ninka doo lacag haysto kale matalan waxaa dhacdo inuu hotel habeenka ay ku aqal galaan amba shaar al-asal shahr al-asal waxaa la bisha malabka dawasa u taqaanin inta carabi taqaan shahr al-asal way taqaana shahr al-asal had isla habeenka saadaan hotel ay aadaan maalmo soo joogaan todobada amba 3 bari soo joogaan amba kale ninka awoodin gurigiisa iska jooga kabacdi shahr asalka oo lacag wuxuu aruursaday ilaa waa ugu talgalay hadee dhoofayaan ee wadanka ka baxayaan iyo hadee ay wadanka joogayaanba shahr asalka almuhiim wuxuu dhahay leelada daquuladeeda waxaa rabaa maradeeda marati aniga oo meel fiican oo aadno funduq aadna nacam funduq hotelka laga wadaa weebax markuu habarta hayay tiri ilan gabadhan wuu qabaa 6 bilood oo qaw wuu wada wuu soo wada meesha rabto geedaw suuq rabta dahab rabta oo saa wadaay walaalaheeda raaceen nacam walaalaheeda habarteed iyo waxay dhaleen raacayeen gabadha raasan iida walaal lama dhalin habartaas gabadha kalageeda ka qabta hooyadaas Allah u dhibdhaama kulay marka ogaani way noolad wayna xanuunsan raasan oo qad nafsi wax ku dhacay gabadheeda markay ka dhimatay gabadha see ku dhimatay iyo si kalena fiidiyogan wuu batay maxaa la sheegay gabadhi maxaa ku dhacay ma dhimatay ma dilay kaliya ma laga baxsada ma la qashtay insha Allah qayb qalaadinka sameeyna raas qaybtaas anoo fadhiyo oo idin dayay idinka sheekeynaya hada idinku ooyeen idinka leewaay laano gabadha hada ka silaantaan wax meega dhiblaan horta wax maqash iyo wixii aragta kala xanuun badan hadana qofkiina aad taqaanid mogtahay marka waxaa dhacday gabadhii wuxuu dhahay guriga leelada asal aadina wuxuu dhahay yaa la dhahay baaburkooda loo camirna Land Cruiser VIP oo ninka watay waa la baxay xeey kale soo ijaartay marka xeeyada uu ku aroosay ma xeey kale xeeyna waxaa la xaafadaha hayaag oo nacam caraba ay degaan oo jaanibta ay deganeen oo deganay ninka xeeyada uu ijaarma xeey kale uu ijaaray xeey safa meel la uu ijaar markaas hadda Soomaali way degtaa Ethioopianka u badnaa jiray taasan markaas Ethiopian oo jinsi Sacuudi haystay Ethiopian lacag loo daraagas waxaas gagadaan un baa deganay taasan hatta uma badneen iyaga hatta uma badneen si hadda loogu badneen badana carabta degeeyeen iyo dadka lacag badan haysta deganaa jireen xeeyooyinkaasii oo marka wuxuu dhahay xeeyadaasii nacam aadayna xeeyada wuxuu geeyay marka guri oo villa ah oo gabadhi maalinta koowaad ilaahay caawa labada bas ma soo hadlays mogtahay laakiin subaxii hooyadeed waa inay soo wacdaa amba hooyadeed ee wacdaa sax telefoonka wuu xiran yahay waxaa la aroos waay hal iska dhaaf way hurdooyaan maalinta labaad gabartii hadal ma leh waxaa la isdhaamay aroos waa gabadh inay soo shabarto oo hadana gabadheed wixiid waa mugta kalageeda ka qabto maxaa ku dhacay habeenka saddexaad ee dadka wiishka ku yeeray habeenka saddexaad iyo qaybta dambe insha Allah walaalihii qiimaha badan habeenka saddexaad maxaa dhacay abaayada maxaa ku dhacay ilaa horta u naxariisto way dhimatay raagsan sababtay u dhimatay wallahi way dheer tahay inta dambana waa calool xumo
unu duceeyo insha allah hadduu ilaahay idmo han loo soo duceeyo hooyadaas kuley inta inay nooshaa umaleynaa kuley taas markaa ogaa way nooleeda kuley intaan sacuudiga muuqanaa waa 1 sano iyo xoogaa way nooleeday taas way xanuunsaneed oo xanuunay qabtay oo isbitaalada ilaaj iyo daawo ka qaada jirtay ilaahayna caafimaad ha siiyo inkastoo aniga taa 2 sano ka hor ay ugu dambeysay hooyada 2 sano ka hor ay ugu dambeysay taa markaa soo baxay isma arkin xaafadaas anaftigii waa kasoo guuray xaafad kale deganay ismaan arkin insha allah qaybta dambe maxaa ku dhacay hooyada see noqotay gabadhi maxaa lagu sameeyay see lagu ogaaday iyo see lagu arkay insha allah qaybta dambe idinku sheegi doona anoo fiidiyooga wuu sii badanayaa